السلام عليكم سودو وصاحبك شاهد بيساني فيديو waxaan kula wadaagi doonaa 10 talo 10 kaas oo talo oo ku sahli doonta maanta hadaad lamaana leedahay lamaanuhu laba ayuu qaybsamaa mid markaasi aan wali degin iyo mid macnaha degay labaduba waa isku soo qaadanaya talada koowaad waxa ay tahay oo ogolow qofkaani inaad jeceshahay badana waxa dhacda in qofka bilaadanka hadii markaas jecel uu naga dhaxeeyo ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaado qofkiiba waxa ka raadinaa inuu asiga horta noo muujiyo jecel annagu jecelkan u hayna dib baan u dhigaynaa asiga horta markuuna jeclaado kadib baan jeclaanaynaa taasi markaas waxay iimaanaysaa in gorgortan meesha uu ka socdo gorgortankaasi marka uu yimaado waxa iimaanaysaa qofka inay isfahmi weydaan laakiin marka koowaad hadaad rabtid qofkan inay isfahantaan naftaada ka dhaadhacsi qofkan inaad jeceshahay naftaada marka ka dhaadhacsi tartiib oo qurux badan ugu sheeg kuna dareensi wuu fahmaya laakiin adoona naftaada ka dhaadhacsiina hadii aad qofka ku tiraado waa ku jeclaa ama waa ku baahnaa ama waa ku doonay laga yaabaa in maskaxdiisa ay soo gasho wax kale ay ka ridid ama siyaasad ay ku jirto marka waxa aad ku dadaashaa marka hore inaad ka dhaadhacsiiso naftaada qofkan inaad jeceshahay naftaada marka ka dhaadhacsiiso qofkan inaad jeceshahay waxa ka degay culays tiro badan ay kamid tahay aad mar walba ka sugtid inuu ku muujiyo inuu ku jecel yahay waayo marka aad ka dhacsiinaysa naftaada inaad jeceshahay naftaada waxa ku dadaalaysa horta inaad asiga wanaag u muujisid wanaag marka u muujisid ay dab ka tahay kadib qofkaana haduu qof wanaagsan yahay uu ku soo fiirinaya talada labaad waxa ay tahay hadiyadu waxaan u noqonaa kaliya waxyaabo qalqaaliya qofkeena u soo gadno hadiyadaha waxa kamid ah hadalada macaan hadalada naxariista leh hadalada qofku bilaadanka saameyn ku yeelanaya qalbiga hadii aad hal hadal joogtaysid qofku wuxuu u qaadanayaa qiyaali inaad ku hadlaysid laakiin waa in hadalladaadu ay ahaadaan mid kala duwan mid aad adigu ka fikirtay iyo mid aad ka soo fiirsatay iyo mid marka aad dhehaysid ay ku haboon tahay adigoo dan leh hadii aad hadal qurux badan tiraadid kadibna dantii qofka aad weydiisatid isla markii maskaxdiisa qofkan way shaqeynaysaa wuxuu is leeyahay waxa hadalka quruxda badan ku yiri qofkaani dantan ayuu ka rabay hadii marwo ku dhaxda jirto oo guriga ku degan tahay guriga marka u soo socotid waxaad u soo qaadaa waxyaabo yariis oo hadiyada waayo qofku bilaadanka maanta dhan uu ku sugayay albaabka marka ka soo gashid waxa laga yaabaa inay video daawanaysay television daawanaysay dad isqaba arkaysay buuq arkaysay waayo dadka badana baraha bulshada ay ku wada jiraan baraha bulshadana waxa badana ku jira dad isqaba dad wax soo bandhigaya kadib waxa laga yaabaa ficilkii iyo wixii inay aragto iyadoo niyadeedu wax ka guuxayaan hadii aad iska soo gashid laga yaabaa su'aalo inay ku weydiiso marka hadii aad hadiyad wadid hadiyadaas afarta ka saartid maalinta kale aad iimaanaysa xataa niyadeeda su'aal inay ku weydiiso ma soo galaysa niyadu waxa soo galaysa muxuu keeri doonaa muxuu wadi doonaa muxuu la imaan doonaa niyadeeda waxa ku wareegaya marka aad guriga timaadin waxa laga yaabaa isla markii inaadan su'aal adag ba arag hadii aad markaasi wax awoodi weydo aad soo ilo wanaagsan oo qurux badan albaabka marka ka soo gasho ku dheh waayo qof maanta dhanka maqneedo ku sugay waaye maskax meel iska fadhisay baa macnaha hadii u timid maskaxdaasina waxa ay ku dhaqaaqaysaa inaad wax wanaagsan la timaadid hadii aad guriga timaadid waa inaad wax wanaagsan sameey kartaa وأنا وح ونكسن كهاد ذكرتها وأنا وح ونكسن نصوب بندق كرت قفك أوفر فرعون هذا السدحات وح أي تهاي قف كان حريرك ذكرت حياة أما لما أنها أو ذاتهين ولقى أكود دالين إن هبينك يديكو حنقسن أتكل الصيحتان يديكو كل حنقسن هذا الصيحتان قف كان يسوي مركو صوت وصو وح ولا صوت توسي حناقي لكن ما هو وح وكو حنقسنا إنه أديكو كو حنقسن يعني حناقاسي muddo kadib uu ku soo laba kacleynaya mar walba damco inuu wanaag u sameeyo xanaaqi baan yidiis ku soo dhacay laakiin ma ogu wuxuu ka xanaaqsan yahay mana soo saari karo marka mar walba waxa ku dadaashaa xitaa hadaa kala fogtihiin qofkaasi hadaa isqabataan waa la isqaba karaa bilaadan buu leeyahay in habeenkii markaas si xanaysaan inaad qoraal u qori kartid hadaa kala fogtihiin hadii aad wada joogtaan inaad wada hadli kartid waayo qofkaana ay soo guursateen ama aad wada joogtaan nolosha idin mideeyo waxa ay tahay inaad isfahantaan waxaan isku fahmi kartaan waxa ay tahay inaad wada hadli kartaan hadalkuna wuxuu iimaanayaa qofkaani aad u ogolaatid inuu xanaaq ku seexan talada afraad waxa ay tahay mahadnaqa waxa laga yaabaa badana dadka xiriirka ka dhaxeeya inay isku mahadnaqin kaliya ay isku mahadnaqaan markay dhib dhacdo qofku markaasi uu wanaag sameeyo laakiin mararka qaar qofku waxa wanaagsan in mahadnaqo xitaa hadii markaasi wax dhiba aysan jirin inuu qofku mahad celiyo inuu qofkiisa yahay imisa ayaa kali nool oo maanta lamaana haysan marka hadii aad maanta lamaana haysatid waa inaad ku mahadnaqi kartid una dareensi kartid qofkan uu lamaanahaaga yahay aad ku mahadninaysid qofkaasi markuu mahadintaas arko wuxuu dareemayaa xataa mahadin naxariis baa galaysa talada shanaad waxa ay tahay badana lamaanayaasha ma ciyaaraan qofku bilaadanka waxa laga yaabaa qofku markuu dan leeyahay kaliya inuu ciyaarayo laakiin mararka qaar waxa wanaagsan qofka adoon dan ka leen xataa in la ciyaari kartid
waayo ciyaartu waxay sababaysaa in jirkiina uu dhaqdhaqaaqo jirkiina markuu dhaqaaqo xitaa waxa aad ka dhaqdhaqaaqaysaan qalbiga iyo maskaxda marka qalbiga iyo maskaxda aad ka dhaqdhaqaaqdaan waxa saaidaya farxadiina xitaa marka aad kala maqan tihiin oo aad meel fog kala jirtaan ama qof uu magaalada aado qofka kale wuxuu ku noolaanayaa xasuustii buu ku noolaanayaa iyo farxadii kamana fikiraya ina meel cidla uga tagtid cid kale aad la sheekaysanaysid ama wax kale aad ku mashquulaysid marka aad soo laabatay xataa qofkaasi waxaad ka dareemaysaa inuu kugu farxo laakiin markii ay wada joogtaan haddii idin wada sheekaysanayna ama wada ciyaarayna ama wada kaftamaynin qof walba mobilkiisa ku mashquulayo ama qof walba u jeesanayo marka aad kala maqan tihiin waxa laga yaabaa qof walba inuu dhan kale u fikiro oo xumaashahaasina waxay keenaysaa inay isfaham weydaan marka aad wada joogtaan waxaad ku dadaashaa mararka qaar inaad wada ciyaari kartaan dhaqdhaqaaqi kartaan talada lixaad ha bedelin qofka badanaa waxaa laga yaabaa in qofkaani marka aad istiraado qofkaaga weeyey sida aad doonaysid ha u dhaqmo sida aad doonaysid qofkaani waxaa laga yaabaa inay dhib ku tahay waxaa laga yaabaa in maskaxdiisa aysan u tababarneen haddii aad isku daydo qofkan inaad bedeshid marka koowaad laga yaabaa inuu jecel oo kuu qabo aqbalo marka labaad sidoo kale laakiin marka saddexaad wuxuu soo istaagayaa maya waayo maskaxdiisa uma tababarno waxa aad ku qasbaysid marka saddexaad marka uu soo istaago maya waxa laga yaabaa inaad ii jabtid oo istiraada kow uu kaa yeelo laba uu kaa yeelo marka saddexaad kaaga yeeli waaye markaasna shaki baa imaanaya kadibna buuqiina badanaya marka waxaad ku dadaashaa qofka ha bedelin siduu yahay ku aqbal adiguna sidaa tahay ha kugu aqbalo una sheeg inaad ku faraxsan tahay sida uu yahay waxaana ku dadaashaa qofka intaa bedeli lahayd haddii aad su'aal weydiisid iyo haddaa wax ka ratid iyo haddaa wax u baahan tahaba u ogolow inaad waqti siisid su'aal soo bandhig kadibna ka soo fikir dheh laakiin haddii aad isla markii su'aal inta soo bandhigtid isla marka qofka aad haa ka sugaysid waxaa bilaabmaya inaad isfaham weydaan qofku waqti sii waqtigaas aad siinaysid waxaa laga yaabaa inuu fikrado qurux badan keeno ee noloshiina xataa farxad sii daran toddobaad waa mid ku salaysan qof walba naga mid ah wuuna ku dadaalaa maadaama iimaan aynu leenahay waa nadaafadda qofka intuu caafimaadkiisa iyo nadaafadiisa ku dadaalo waa inta dadka badan ee aagiisa jooga ku mashquulayaan haddaad nadaafadaada ku dadaashid caafimaadkaaga ku dadaashid maskaxdaada ayaa kordhaysa maskaxdaada markay korarto dadka kugu dhow ee ku jecel markaa nolosha kula wadaago waxay jeclaanayaan inay kaa soo agdhowaadaan lada sideedaad iscafiya qofka bilaadanka hadduu qalad kaa galo maaha inaad niyadda ku haysatid sanado waxa lasoo dhaafay bilooyin isbuuc haddii aad niyadda ku haysatid adiga baa xiriirka dhibaateynaya adiga baa nolosha dhibaateynaya waa inaad barataa cafiska waa inaad barataa naxariista waa ilaahay wuxuu leeyahay isku naxariista aan idiin naxariiste ilaahay uu kuugu naxariisto qofkan hadduu qalad kaa gala iska cafi talada sagaalaad xushmadda badanaa waxaynu xushmaynaa dadka nagu cusub dadka markaa aynu baranayno bay xushmaynaa laakiin waxaynu ilownaa mararka qaar dadka dunida noogu jecel inaan xushmayn weyno oo aan sidaa doono ula dhaqanno sababtana waxa ay tahay qofku waxaan ka soo qaadaynaa inaynu leynahnay sidaa doonaan ula dhaqmaynaa markaasi taasi says u dadka cusub ee aad baratay ee xushmaynaysa waxaa ka muhiimsan dadka dunida ugu jeceshahay ee kaa warhaya ee caafimaadkaaga jecel ee mar walba kuu naxaya dadkaasi xushmad sii iyaga ayaa qalbigaaga ku weyn talada ugu dambeysa ee videoga aan kusoo gabagabay doono waa inaad dhanka wanaagsan u fikiri kartaa badanaa maskaxdeena su'aalaha kusoo dhaca waxyaabaha istusnaa u badan dhanka xun mar walba waxa aad ku fikirtaa dhanka wanaagsan xitaa haddii wax xun niyadaada kusoo dhacaan waxaasi haddii mar walba niyadaada kusoo dhacaan marka dambe xumaata isku bedelaysaa laakiin waxaa ku dadaashaa inaad mar walbaba haddii aad wax xun daris kugu laaban kartid oo aad dhihi kartid qofkaani aad wax xun ka dareemaysid waa ilmahaaga aabahood ama ilmahaaga hooyadood waa inaad si wanaagsan uga fikirtaa oo niyadaada wax wanaagsan u gelisaa haddaa mar walba saa u fikirtid waxaa ku sahlanaanaysa in meeshaasi uu buuqa iyo dhibaatada ee ka yaraa haddii aad videogan ka heshay asxaabtaada la wadaag wixii commentiga fikirkaaga waa idugula wadaagi kartaa haddii aad igu cusub tahay subscribe baan kaa codsanayaa meel walba dunida ka joogtid allah kugu xifdiyo asalaamu calaykum